shirkan maanta waxaa looga hadlahayaa shaqaalaha dowladda oo hadda wasiirkana ka hadlayay sheekhana khayr Allah siiye noo sheegay shariicada islaamka waxay ka qabto in lagu maamulo si cadaalad ah iyo karti iyo amaano iyo cadaalad saddexdaas ay asaas ay u yihiin. waxaan rabaa inaan idinku baraarujiyo caalamka khayraadka ilaahay siiyey waxa ugu muhiimsan khayraadka bashari waxa la yiraahdo human resources ya ugu muhiimsan. khayraadkaas bashariga ah oo human resourceska iyo waxyaabaha kala dhan keeni kara oo ay ka mid yihiin cadaaladda, deganaashada siyaasadda, dhaqaalaha iyo deganaashada arrimaha bulshada. khayraadkaas bashari iyo asaas u ah. haddii aan tusaale yar aan idin sheego wadamo hadda baaxadoodana ay dhaneen dalka Soomaaliya khayraadka ilaahay ku manaystay Soomaaliyana aan siinin oo caalamka ugu horumarsanay jira waxaa gaarsiiyey khayraad bashari. hadda Japan oo kale hadda tag Singapore, Malaysia iyo dadka waxaa gaarsiiyey meelaha ay gaareen waa khayraadkaas bashari waa human resources. human resources kaasna wuxuu ka imaanayaa shaqaaleynta nafteeda iyo bulshada guud ahaan si loo soo baarbaariyay loo soo tababaray ay ku soo gaarto ilaa heer ay qabato hoggaan. marka qofkii karti iyo amaano leh oo khibrad leh aqoon u leh subjectskaas uu markaa ka shaqaynayo wuxuu ma aragtay ka faa'iido badan yahay boqolaal qof sababtoo shakhsigan uu garanayaa shaqaduu haayo hadafka uu ka leeyahay inuu shaqadaas ka gaarana uu yaqaana. marka dowlad ahaan anaga inaan marka hore aan aamino in la helo shaqaale tayo leh oo maamulo wasaarooyinka dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed waa arrin muhiim ah. shaqaalahaas habraaci lagu keeni lahaa in la hayana waa muhiim. waxaan leenahay sharciga shaqaalaha rayidka law number 11 hadda shaqeeyo waxaana ku socda dib u eegis sharcigaas. waa in habraaciyo rasmi ay jiraan oo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waana la joogtaa maanta filaya iyo hay'ooyinka kale iska kaashanay la helaa habraaci shaqaalaha rayidka lagu qori lahaa. waxaa kale muhiim ahaan lahaa haddii la heli lahaa nafteed haddii aan helno axsaab siyaasadeed oo siyaasad ku tartamayo naftooda in loo helo dadka siyaasiyiinta soo galayo saaxada habraac siyaasadeed habraac inay yeeshaan si loo helo dadka soo galayo saaxada siyaasadda parliamentarianka iyo xukuumadda iyo haddii xildhibaanadan oo shuruucdan qoray naftooda dad oo marxalad adag ka saari kara dalka daraaso samayn karo shuruuc oo dalka u qalantay dadkana soo saari karo ammaanadana gudan karo. yani waxaan waa isku xiran yihiin markii laga hadlayo
khayraadka bashariga mise human resources adi qofka aad meeshii geysay aqoontii aad ku geysay iyo khibradii aad ku geysay unbaa hadduu wax soo saarayo ku soo saaraya haddii qof tayo leh aad meel geyso aad u malaynayso inuu fulinayo himilada aad leedahay waa laga yaabaa inaad heshid marka shuruuc in loo helo shaqaaleynta shaqaalaha dowladda habraacyo in loo helo habraacyadaas iyo shuruucdaasna loo raaco sidii loo ansixiyey waxaa kale loo baahan yahay wacyigelin fara badan oo arrinta hufnaanta iyo dowlad wanaag wacyigelin badan in laga sameeyo xanaankaas shaqaalaha lagu qorayo wacyigelintan in la iswaafajiyo oo ay noqoto qofkii shaqo doonayo sida wasiirka sheegaba marka hore miisaaniye ma jirtaa meesha ma loo hayaa miisaaniyadii horta lasoo xaqiijiyo habraaca ma jira oo qofka lagu shaqaaleyn karo habraaci la marsiyo markaa kadibna qofkii lagu qaato hufnaantiis ammaanidiis kartidiis iyo waayo aragnimadiis oo la yiraahdo waa kaas dalkii aad u adeegaysa shaqadaada si daacadnimo ku jirto cadaalad ku jirto inaad u gudubta qofku wuxuu dareemayaa marka inuu madax bannaan yahay qof ma keensanin meelo kale ma soo marin wuxuu aaminayaa aqoontiisa inuu ku imaaday aqoontaasuu dalkii ugu shaqaynaya ayadoo taas la tixgelinaya waxaa loo baahan yahay dalkeen maadaama dhibaato amnina ay haysato shaqaalahaas la qorayo systemka la marinayo dhinaca amnigana in laga eego marka la fiiriyo qofkan qof dowladdii daacad u ah oo dowladnimadii jecel oo dalkii dhisaya miyaa mis qof ajende kale leh oo dhibaato dalka u geysan kara taasna ayadan waa arrin meesha ku jirto arrintan waxay faa'iido u tahay barnaamijka hadda wasaaradda maaliyadda wado oo SMB loo yaqaano barnaamijkan deen cafis haddii la helo hanaan looga talagalay shaqaalaha in lagu qoro hufan